kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta noqonka waa barnaamijkeena diiniga ah oo aan toddobaadkii hore su'aalo iska weydiinay waxaan u mahad celinaa dadweynaha ka soo jawaabay su'aalooyinkii ama talooyinka ka soo bixiyay laakiin waxaan ka wadanaa ogeysiis su'aalaha laga soo jawaabayo oo farabadan yihiin dadkuna oo farabadanaya maadaama ay taas jirto dadkii farabadanayaan waxaan sameynaynaa hab adi kadib dadku ay ku koobnaadaan habeen kasta waxaan sameynayaa 8 su'aalood 8 su'aalood laba ayaa sigrad ku dhex noqon doona labadaas su'aalo cidii ka soo jawaabto oo khaasatan qofka uu garanayo cidii ka soo jawaabto oo abaalmarin lagu doonsiin doona haddii aan idinku celiyo laba su'aalood ayaa sigrad ku dhextaal ku ah khaasatan anigu aan garanayo labadaas su'aalood cidii ka soo jawaabto abaalmarin noqon doona cidii ka soo jawaabtay garata markaasna waxay soo sheegi doonaan meesha loogu hagaajin doono iyo goobta ugu dhow ee ka qaadan doonaan su'aalaha waxa ka koobnaan doonaan 8 su'aalood oo kala ah 1 iyo 2 iyo 3 aan kala sheegi doono su'aasha ugu horeysa sheeg saxaabigii maalintuu dhintay carshigu galiyay sheeg saxaabigii maalintuu dhintay carshigu galiyay sheeg saxaabigii dhimashadiisa malaa'igtu maadhay sheeg saxaabigii dhimashadiisa malaa'igtu maadhay imisa suuradood imisada ayuu quraanku soo degay imisada ayuu quraanku soo degay su'aasheena afraad sheeg suurada ku dhamaata wadara sheeg suurada ku dhamaata wadara imise xadiis ayuu lahaa Abu Hurayra imise xadiis ayuu lahaa Abu Hurayra sheeg inta jeer ay ku jirto magaca Ilyas Quraanka sheeg inta jeer ay soo noqnoqoto magaca Ilyas ee ay ku jirto Quraanka su'aasheena toddobaad sheeg cuntada lagu casuumi doono ehlu jannada sheeg cuntada lagu casuumi doono ehlu jannada ayaa su'aasheena sideedaad ugu dambaysa ayaa aasaasay dhakhtarkii ugu horeeyay ee lagu daweeyo maskaxda ayaa aasaasay dhakhtarkii ugu horeeyay ee lagu daweeyo maskaxda haddii aan su'aalihii habeenkii hore aan isweydiinay aan halkan ka jawaabo wiil ayaa ka soo jawaabay 6 su'aalood Mukhtaar Cabdiyahna la yiraahdo waxaan haddii aan su'aalihii ka soo jawaabo aan xagan inaga sheego suurad Caruusatul Qur'aan bal waa suurada Ar-Rahma al-Abraar waxa la sheegay wali 26 jeer Madiina waxa ku soo degay wali 28 suuradood inta kalena su'aalihiisa 6 su'aalood buu wada saxay wiilkaasi waxaan ku leenahay Mukhtaar Cabdilaahi aad ayaad u mahadsantahay saad uga soo jawaabtay su'aalaha iyo dad meeshaad joogtana laakiin nooma soo sheegin aad baan kuugu mahad celinay dadweynaha farahay talooyinka iyo ama doodaha ka soo dhiibtana aad badan inuu mahadsantiin baan leenahay waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan tan iyo inta mar dambe hawada ku doono salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh